Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino Hiil Shacab TV mar walba waa mid u taagan soo bandhigidda xaqiiqooyinka gudaha dalka iyo dibaddiisa ka jira qodobada aad warkayga ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dhuusamareeb oo amniga si weyn loo adkeeyay xilli maalinimada berita ah la rajeynayo in doorasho halkaasi ay ka dhacdo xanuun soo wajahay Cabdirashiid Janan intii uu ku sugnaa gurigii ay ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya oo looga daweynayo magaalada Nairobi warbixin dhameystiran ayaan idinkaga soo gudbin doonaa Xasan Sheekh waxa uu si murugo leh uga hadlay xaaladda Galmudug ay wajahayso Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo xiriirkooda uu sii xumaaday kadib hadal kulul oo ka soo baxay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Jawaari waxa uu qiray in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay hal arin oo ay ku fashilmeen dhammaan dowladihii soo maray dalka Soomaaliya iyo waliba Erdogan oo soo bandhigay dalal ku mashquulsan shirqool ka dhana Qudus warkii oo fidsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino haddii aynu ka hormarno magaalada dhuusamareeb ayaa la sheegayaa in ammaanka si weyn loo adkeeyay qabanqaabo ayaa halkaasi ka socota xilli la doonayo in beri halkaasi lagu doorto madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay si aad ah u xoojiyeen ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb caasimadda maamulka Galgaduud ilo deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay howlgallo ka wadaan baraha control ee magaaladaasi iyaga oo baaraya gaadiidka dadka saarana su'aalo weydiinaya sidoo kale ciidamada ayaa xadiday dhaqdhaqaaqa qaybo ka mid ah dhuusamareeb gaar ahaan xarunta shir kale oo lagu wado in lagu qabto doorashada Galmudug qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada ayaa haatan ka socota halkaasi taasi oo lagu wado in la qabto beri oo axad ah kuna beegan waqtigii loo asteeyay in madaxweyne cusub uu yeesho maamulka Galmudug wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weli kulamo siyaasadeed ay ka socdaan dhuusamareeb kuwaasi oo xal loogu raadinayo khilaafka maamulkaasi kulamadan oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxay u dhaxeeyaan guddoonka baarlamaanka Galmudug iyo musharaxiinta u taagan hoggaanka maamulkaasi gaar ahaan kuwa diidan ka qaybgalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Galmudug ayaa gashay marxalad adag tan iyo markii la galay dhismaheeda waxaana haatan ay u kala qaybsan tahay saddex qaybta koowaad waa Ahlus Sunna wal Jamaaca oo madaxweyne ku dooratay magaalada dhuusamareeb sheegayna in Sheekh Axmed Shaakir oo loo doortay madaxweynaha uu yahay kan ugu saxan ee maamulka Galmudug dastuurna uu ku joogo Axmed Ducaale Geele Xaaf oo sheegay in waqtigiisa uusan ka dhamaan waxa uu saldhig ka dhigtay magaalada Gaalkacyo halkaasi waxa uu ka sameeyay baarlamaankaasna waxa uu ku amray in ay doortaan madaxweyne ku-xigeen isla markaana wuxuu sheegay in uu waqtigiisa si dhameystiran doono iyadoona sidoo kale baarlamaan ay aqoonsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb kaasi oo berito dooranaya madaxweyne cusub oo uu yeesho maamulkaasi balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in ay madaxweyne iyada ay wadato doonayso in uu xil ka qabto Galmudug xog dheeraad ah ayaa laga helayaa xanuun la soo darsay Cabdirashiid Janan intii uu ku sugnaa guri ay ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo xanuunkaasi looga daaweynayo magaalada Nairobi saacado kadib markii uu magaalada Kismaayo gaaray wasiirka amniga Jubbaland ayuu safar uga ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya halkaasi oo galinkii dambe ee Jimcihii la geeyay Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa sida la xaqiijiyay waxa uu dooni ku tagay magaalada Kismaayo kadib markii uu ka raacay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay tan iyo markii uu talaadadii ka baxsaday xabsiga dowladda federaalka Soomaaliya ay ku haysay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed Shire Culey oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu ka xog warmay socdaalka uu xilligan wasiirka amniga Jubbaland ku jooga magaalada Nairobi isagoo ka dhawaajiyay in arrimo caafimaad halkaasi uu tagay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta magaalada Kismaayo kula kulmay markii uu wasiirka yimid ayaa xusay in wasiirka uu ku dhacay xanuun muddooyinkii ugu dambeeyay dalka ka jiray ee kadoodiyaha loo yaqaano wuxuu noo sheegay intii uu xabsiga ku jiray in uu aad u xanuunsaday isla markaana
uu ku dhacay kaduudiya cudur la yiraahdo oo xagga lugaha kaga dhacay laakiin sidiisa kale caafimaad waa uu fiicnaa laakiin waxaa ka muuqday dhafar soo jeed badan markuu Kismaayo soo gaarayna waxaanu geynay garoonka Kismaayo qaybta xarunta caafimaadka ee Amisom xoogaa dawooyin ah ayaan ka siinay isla markiina waxaan qalqaalinay sidii degdeg Nairobi loogu qaadi lahaa si uu halkaasi ugu nasto xaaladiisa caafimaadna loogu baaro marka hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ayuu yiri xildhibaan Culey oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee PPC-da ayaa waxa uu soo hadal qaaday in dadka reer Kismaayo iyo madaxda Jubbaland ay si weyn ugu faraxsan yihiin markii ay arkeen wasiirkooda oo Kismaayo soo gaaray kana soo baxsaday goobtii ay ku ilaalinaysay dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Janan ayaa weli wax war ah aan siinin saxaafadda balse madaxtooyada Jubbaland ayaa ballan qaaday in faahfaahin dheeraad ay ka bixin doonto sida uu uga soo baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya weli dowladda federaalka Soomaaliya wax war ah kama aysan soo saarin baxsashada uu baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland oo in muddo ah gacanta ugu jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya isla arrimaha galmudugna haddii aynu dib ugu laabano madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud si murugo leh ayuu uga hadlay xaaladda adag ee uu wajahayo maamulka galmudug madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan dhismaha maamulkaasi ayaa baaq ka soo saaray isjijiidka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ugu horeyn waxa uu tilmaamay in aas-aaska galmudug iyo isku keenida beelaha degan maamulkaasi laga soo maray wada dheer oo dib badan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tanaasul iyo midnimo la sameeyo si loo dhiso maamul loo dhan yahay deegaanada iyo dadka ku abtirsada dowlad goboleedka galmudug taariikh ahaan waxa ay door mug leh ku lahaayeen dowladnimada Soomaaliya dhismihii galmudug waxaa loo soo maray wada dheer oo ay ka mid ahaayeen isu imaatankii iyo wadaxaajoodkii beelaha dega galmudug xilligaasi deegaanada galmudug waxaa ka jiray maamulo kala duwan oo tiro ahaan aad u badnaa kuwa magac ahaan u jiray iyo dhib badan oo laga soo maray sidii la isugu keeni lahaa la iskuna ogolansiin lahaa dadka reer galmudug wadaxaajood dheer kadib waxaa lagu heshiisiyay in laga tanaasulo oo la mideeyo maamuladii jiray xilligaasi maanta waxaan rajeynayaa in galmudug aanay dib ugu noqon meeshii ay ka timid waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dowladda federaalka siyaasiyiinta reer galmudug iyo hogaamiyayaasha beelaha in la muujiyo dulqaad iyo tanaasul si loo heli karo galmudug midaysan oo leh hoggaan la wada doortay si dhammaan dadka reer galmudug uga wada guntadaan in ay xoreeyaan deegaanada ku harsan gacanta nabadiidka ugana faa'iideystaan fursadaha faraha badan ee ka jira deegaanadooda ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan dardaarmaynaa oo aan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano xalka wax walba oo jira waxaan ku talinaynaa in la dejiyo xaaladda oo aan la degdegin la iskana ilaaliyo hadallada iyo ficilada aan xalka wax ku soo kordhinayn guul iyo nabad dhammaan deegaanada iyo daneeyaasha reer galmudug ayuu hadalkiisa ku soo koobay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa dhowr jeer oo hore si kulul uga hadlay xaaladda maamulkaasi uu wajahayo waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkooda oo meeshii ugu xumaa gaaray balse markan haddii aynu eegno Jawaari gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda haatan jirta ay ku guuleysatay hal tallaabo oo ay ku fashilmeen dhammaan dowladihii dalka soo maray gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xalay ka qayb galay barnaamij dood wadaag ah oo lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana uu kaga hadlay arrimaha dastuurka doorashooyinka iyo waliba fargelinta beesha caalamka ee Soomaaliya mudane Jawaari ayaa sheegay in marka hore muhiimad gaar ah leedahay dhamaystirka dastuurka iyo soo afjaridda isqabqabsiga iyo loolanka u dhaxeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada Jawaari ayaa naqdiyay danaha caalamka uu ka leeyahay Soomaaliya xilligan waxaana uu si dadban u taageeray inaan warkooda muhiimad gaar ah la siin isagoo yiri intaan leenahay beesha caalamka maxay tiri safiir hebel muxuu yiri horay uma soconayno safiirada jooga wadanka waa danjirayaal danihiisa in uu ku fishado mooyee ujeedo kale ma lahan waxa uu intaasi ku sii daray Jawaari
in beesha caalamka warkeeda meel la iska dhigo, isagoo tilmaamay inaysan ka hor imaan karin dowladda federaalka maadaama aan dano kala duwan leenahay. Ayuu yidhi Jawaari ayaa xusay in Soomaalida kal iyo laab u dhageystaan dadka ajaaniibta ah, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga taxadiro. Gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa qirtay in dowladdii Xasan Sheikh in beesha caalamka ay galaangal weyn ku lahayd go'aamada la gaarayo, islamarkaana fargelin nooc walba ay ku haysay dalka, wuxuuna tibaaxay in hadda aysan sidaasi ahayn oo ay ilka beeleen. 2016 doorkii ay ku lahaayeen beesha caalamka Soomaaliya iyo maanta farqi weyn ayaa u dhexeeya. Maanta waa ilka beeleen, laakiin markaasi qoorta bay nagu dhegnaayeen. Hadda waxa ay xoogga saarayaan danta ay dowladda federaalka ka rabaan. Hadda doorkooda ma ahan in dowladda federaalka ama maamul goboleedka ku soo hogaamiso danahooda. Marnaba laga sugi maayo in ay dad isku keenaan, in ay Soomaalida isku yimaadaan mooye, ayuu yidhi Professor Jawaari, oo sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay tallaabadaasi. Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkooda meeshii ugu xumaa ayuu gaaray xilli ay muuqato in hadallo kulul warbaahinta isku mariyeen wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Goodax Barre iyo weliba senator ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba ka soo dabcin mowqifkeeda ku aadan in arday ka socota Puntland aan sii doonin shahaado haddii aysan ka qaybgalin imtixaanaadka dowladda. Goodax Barre hadalkiisa waxaa ka horeeyay hadal horey uga soo yeeray senator Faroole oo ku saabsanaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay cunaqabateen waxbarasho ku soo qaaday maamulka Puntland, taasi oo aan loo dulqaadan doonin, iyadoona haatan la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay burburin ku wado maamulka Puntland, balse Goodax Barre waxaa gebi ahaanba meel uu iska dhigay arrinta la xiriirta warka ka soo baxay senator Faroole, isagoo ku tilmaamay nin fidno horinaya. Erdogan waxa uu ku eedeeyay 4 dal oo Carab ah inay ka shaqeynayaan shirqool loo dhigo Qudus. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah dalalka Carabta inay taageerayaan qorshaha Bariga Dhexe uu shaaca uga qaaday madaxweyne Donald Trump, taasi oo uu sheegay inay tahay khiyaano qaran. Wuxuu ugu baaqay dalalkaasi inay isaga haraan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada la xiriira inay dhibaato u geystaan muslimiinta. Waxa uu sheegay in dalalkaasi ay yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Bahrain iyo Jordan, isagoo ugu baaqay in dowladiisa ay tallaabo ka qaadi doonto haddii sidaas ay kusii socdaan. Akhyaartana daawanaysaay, haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada aan idinkugu soo gudbino. Heel Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Markana waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa warkii caalamka.